بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرضي وحن ربا عشركي ليلة أها عن إدين دري أو فهم طريقة أبدنا إن عن كتشو ابنه سؤاله سي قيبة كمدة مركا قيبتن كواد وحين كسو قادننا إرياضة أدو ورقضها واهيستا erayada qaybtooda tagaysaa kadib waxa ka jawaabaysaa waxaad dhageysanaysaa jawaabta su'aalahana waxaad ku qoranaysaa markaa hadii Ilaahay idmo waxa ku qoranaysaa meesha ay ku qoran yihiin jawaabuhu hadii Ilaahay idmo qaybta eray dhaqameedka tagaysaa eray dhaqameedka qaybtiisa waxa ugu horeeya erayo qaybta ba la rabo in la macneeyo erayga marka meesha ku qoran eray la macno ah baa ardayga laga rabaa inuu hadii Ilaahay idankeeda leeyahay uu keeno waxa meesha ku qoran marka areebo baa ugu horeysa waxa la macnaa baali ama basari lambarka labaad waa mure waa harubgaal gaawe ama toobke waa harubka geela lagu maalo finaaq waa ku xigta lambarka saddexaad waa badho biqjaar ama ama hadii la ku roonyaa baaqimo waa neefka caanaha yar isaguna risiq waa calaf ama sad wixii Ilaahay uu ku qoray lambarka shanaad waa oofta ereyga wuxuu la macno yahay feeraha uu la macno yahay marwo waa maranti xaas afo hal waa tulud dhibaato waa hadimo dhalaan waa caruur doobi waa harubgaal taran waxa la macnaa badasho rac waa qayb sooyaal waa taariikh fac waa da maakubo waxa weeye dhamaystirnaan maakubidu waa dhamaystiran dhambaal waa fariin dixasho balaarasho kareeb waa irarabo geela ubadka laga reebo waxa la dhahaa kareeb ama waxa kale oo la yiraahdaa ayradhaban waa la yiraahdaa qaybta ku xigtoota arday waxa laga rabaa in ereyga asharaxdo ereyada meesha ku qoran saadarteed waxa ugu horeeyay himbiriirsi waxa la dhahaa wixii aan ishu si fiican aysan u arag markaan ishaadu aysan si fiican wax u arag baa waxa la yiraahdaa himbiriirsi abxadu waa boorsadii dumarkii hore ay dharka ku qaadan jireen qufad waxay la macno tahay dambiil oo tusaalahan waa alaabaha yaryarka ah reer miyigu shayga ay ku guran jireen waxa ku soo haray ningaxu waa xarig yar ama mayrax ama mara yar oo nadiif ah oo haanta haruubkeeda qarkiisa lagu duubo nadi waa jeedal yar oo fardaha lagu dhufto markuu nadigu gubo neef yari waa jaragaliyo hadii nadigu gubo neef yari waa jaragaliyo waqtulaha abwaanki marinku waa xarar ama farshaxan lagu sameeyo rarooyinka jifi waxay la macno tahay farantiga oo kaleeto ul qaab bir qaabkeeda u samaysan weeyo oo matoobada afkeeda ama usha afkeeda dambe ee dhulka xiga si ay usha u tifmin loogu sameeyo caaneeyo waxa la yiraahdaa subaga marka dabka la saaro burcadka ah baa la kala saaraa marka waa qayb caano ay la socdaan biyo ay caano la socdaan oo subaga marka laga saaro axal duugid waxa la yiraahdaa neefka geela ah marka uu dhalo ilmaha yarka ah marka hasha la farabarayo waa farabarida ilmaha yar marka hasha la rabo in la farabaro baa loo axal duuga si markaas ilmahaas iyo hashaas nuugmadeeda uu ula qabsado ilmaha marka uu yar yahay waxa ku soo haray xaraq waxa la yiraahdaa biyo waxa weeye aan inta badan xooluhu cabin oo ceelasha qaarkood laga helo waxa ku soo haray afdocol waa geed qalajiye ahaan loo isticmaalo oo ka baxo nugaasha sankuriix wuxuu la macno yahay caanaha dhanaan baa waxa la yiraahdaa sankuriix caanaha aadka u dhanaan sandulle
sandulluhuna wuxuu la macno yahay isaguna khasab. markaas khasab wax lagaaga dhiga waxaa la yidhaahdaa sandulle. waayahay halkaas baan qaybtan ku joojinaynaa. aad ayaad u mahadsantihiin.